ururka naafada ee Somaliland ayaa saluug ka muujiyay hanaanka loo maamulo dhaqaalaha ururka naafada ee Somaliland. Shir jaraa'id oo ku qabteen gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxay fariin ugu direen madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, iyagoo ugu baaqay inuu kulanka berritooda ula yeelan doono ay qayb ay ka noqdaan ururka naafada ee Somaliland. Gudoomiyaha ururka naafada Somaliland ayaa fariintaasi u diray madaxweynaha Somaliland, waxaana uu tilmaamay cabashooyinka iyo tabashooyinka ay qabaan inay u gudbinayaan madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. waxaan in badan baari doonay oo ka hadalnay oo aanu codsanay in miisaaniyadda qaranka Jamhuuriyadda Somaliland loogu daro waxaanu karooyinka iskaga bixino maadaama aanu nahay naafo u adeegta saaka xafiiska isugu wada jooga guddidii ururka waxaanu codsi u diranaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland annagoo maalin khamiistii uga mahad celinay kulankii uu la qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland dadka baahiyaha gaarka qaba ama naafada qaybo ka mid ah oo laba urur la kulmay, ururka dhagoolayaasha iyo ururka indhoolayaasha, isaga iyo wasiiro iyo xubno baarlamaanka iyo agaasimaha shaqo qaran Maxamed Xuseen muwaadinka ninka la yiraahdo. madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday inuu axadda la kulmayo ururada naafada madaxdoodii si uu ugu kuurgalo baahidooda dhabta ah. wuxuu amar siiyey oo ku amray oo horena lay minister ahaan aan u hoos tegi jiray wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska. cabashadayada ugu badanina ay ahayd in ay noo tixgeliso codsigeeda oo ay naga kaalmayso wixii aanu ku howlgelinay ku sii shaqayn lahayn, maadaama ay ka warhayso wasaaraddu iyo xukuumaddu waxaanu urur ahaan u taaganahay ama dadka aanu u adeegno. khamiistii wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada ee madaxweynuhu amray inuu la kulmo dadka naafada madaxdooda, wuxuu la kulmay ururadii naafada kale, wuxuu diyaariyey ergadii madaxweynaha u tegi lahayd oo aanan ku jirin ururkani. sabab uu nooga reebayna ma garanayno. waxaanu madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ka codsanaynaa Muuse Biixi Cabdi Xidiin, mudane madaxweyne in badan baad aragtay ururkan oo hadlaya, wixii aanu qabanayna de waa wax muuqdo oo la og yahay. geesta kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah ururka naafada ee Somaliland, iyagoona cabiray hanaanka dhaqaalaha ururka naafada ee Somaliland sida loo maamulo. fariinna u diray madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. Soomaalida waxay ku mahmahdaa hadal nin badiyeyna ma wada oran, nin yareeyeyna kama wada tegin. intaa gudoomiyuu yiri ayay noogu dhantahay. waxaanu codsanaynaa waxa weeye la kulanka naafada la kulmayaan madaxweynaha de naafadaanu ka mid nahay in lagu daro di ilaahay idan ka dhigahayo annaka cidnaba ku baydin cidnaba aan wax oran de waxaanu nahay naafada Somaliland ayaanu ka mid nahay aan la kulanno madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland nala soo kulmo oo loo tixgeliyaan ururkan haddaan nahay ururada Somaliland in la kulmo oo lagu soo daro ururada la kulmayo. marka waxaan leenahay haddii aanu nahay ururka naafada halkan waxaanu maanta shir jawaab ugu qabanay sidii uu noola kulmi lahaa madaxweynuhu nagu soo dari lahaa ururada uu la kulmayo ee naafada ah. sidaasaan markaa aanu maanta shirkayaga uu isugu yimayo iyo jaraa'idka iyaga aanu qabanay uu yahay. Xamse Qurbaani, warbaahinta qaranka Somaliland, Hargeysa.